xarunta caalamiga ah ee cilmi xidigiska ayaa sheegay inay jiraan dalal qorsheynaya in maalinta koowaad ee ciidulfidriga laga ciidi doono maalmaha arbacada khamiista iyo jimcaha. madaxa xarunta cilmi falaga maxamed shakawaad cawad ayaa waxa uu xusay in ay bishan May 13 tahay maalinta koowaad ee ciidda marka loo eego cilmi xidigiska, isla markaana la filayo in inta badan dalalka islaamka in bisha laga arko habeenka talaadada ah ee ku beegan bishan May 11-keeda. waxa uu soo hadal qaaday in ay jiraan dalal uu soonku ka bilowday bishii lasoo dhaafay ee Abriil 14-keedii, kuwaas oo la filayo in ay maalinta arbacada laga arko bisha soonfur. wadamada laga ciidi doono maalinta khamiista ama jimcaha waxaa ka mid ah Pakistan, Morocco, Oman, Bangladesh, India iyo sidoo kale Brunei. sidoo kale inta badan dalalka islaamka afrikaanka ee aan carabta ahayn waxa ay maalinta koowaad ee ciidulfidriga u noqon doontaa khamiista ama jimcaha soo socota. dalka Suudaan waxaa horey loo shaaciyey in ay maalinta arbacada ay tahay maalinta koowaad ee ciidulfidriga, halka Sacuudiguna uu sheegay in 30 maalmood la soomi doono bisha barakeysan ee Ramadaan. dhinaca kale, golaha wasiirada ee dalka Suudaan ayaa shaaciyey maalinta ciidulfidriga ee wadankaasi. qoraal ka soo baxay xogayaha golaha wasiirada ee dalkaasi ayaa lagu shaaciyey in fasaxa maalmaha ciidulfidriga ay bilaaban doonto maalinta arbacada ah, waxa ayna ku beegan tahay bishan May 12, iyadoo munaasabadaas ay socon doonto ilaa bisha May 16-keeda oo ku beegan maalinta axadda ah ee soo socota. qoraalkan waxaa kaloo lagu xusay in ay shaqaalaha dowladda Suudaan ay dib ugu laaban doonaan shaqooyinkooda bisha May 17-keeda. dhinaca kale, Sacuudigu waxaa markii ugu horreysay uu shaaciyey in ay taariikhda kalendarka islaamka loo isticmaali doono tiknoolajiyadda cilmi xidigiska ama falaga, halka markii hore loo adeegsan jiray dhaqanka aragtida bisha. Sheekh Cabdullaahi bin Suleymaan oo la taliye ka ah maxkamadda boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegay in uu sanadkan Ramadaanku noqon doono 30 maalmood, sida uu ku sheegay wareysi uu siiyey shabakadda warbaahinta ee Al-Sharuq Online. waxa uu ugu baaqay dadka doonaya in ay bilashada cusub ay eegaan dhammaadka bishan Ramadaan inay sii wadi karaan arrintaasi. Sacuudiga waxa ay sheegeen in ay bishan Ramadaan ay la soomi doono 30 maalmood, inkastoo lagu kala duwan yahay aragtidaasi. xarunta caalamiga ah ee cilmi xidigiska ayaa sheegay inay jiraan dalal qorsheynaya in maalinta koowaad ee ciidulfidriga laga ciidi doono maalmaha arbacada, khamiista iyo jimcaha. madaxa xarunta cilmi falaga maxamed shakawaad cawad ayaa waxa uu xusay in ay bishan May 13 tahay maalinta koowaad ee ciidda marka loo eego cilmi xidigiska, isla markaana la filayo in inta badan dalalka islaamka in bisha laga arko habeenka talaadada ah ee ku beegan bishan May 11-keeda. waxa uu soo hadal qaaday in ay jiraan dalal uu soonku ka bilowday bishii lasoo dhaafay ee Abriil 14-keedii, kuwaas oo la filayo in ay maalinta arbacada laga arko bisha soonfur. wadamada laga ciidi doono maalinta khamiista ama jimcaha waxaa ka mid ah Pakistan, Morocco, Oman, Bangladesh, India iyo sidoo kale Brunei. sidoo kale inta badan dalalka islaamka afrikaanka ee aan carabta ahayn waxa ay maalinta koowaad ee ciidulfidriga u noqon doontaa khamiista ama jimcaha soo socota. dalka Suudaan waxaa horey loo shaaciyey in ay maalinta arbacada ay tahay maalinta koowaad ee ciidulfidriga, halka Sacuudiguna uu sheegay in 30 maalmood la soomi doono bisha barakeysan ee Ramadaan. dhinaca kale, golaha wasiirada ee dalka Suudaan ayaa shaaciyey maalinta ciidulfidriga ee wadankaasi. qoraal ka soo baxay xogayaha golaha wasiirada ee dalkaasi ayaa lagu shaaciyey in fasaxa maalmaha ciidulfidriga ay bilaaban doonto maalinta arbacada ah, waxa ayna ku beegan tahay bishan May 12, iyadoo munaasabadaas ay socon doonto ilaa bisha May 16-keeda oo ku beegan maalinta axadda ah ee soo socota. qoraalkan waxaa kaloo lagu xusay in ay shaqaalaha dowladda Suudaan ay dib ugu laaban doonaan shaqooyinkooda bisha May 17-keeda. dhinaca kale, Sacuudigu waxaa markii ugu horreysay uu shaaciyey in ay taariikhda kalendarka islaamka loo isticmaali doono tiknoolajiyadda cilmi xidigiska ama falaga, halka markii hore loo adeegsan jiray dhaqanka aragtida bisha. Sheekh Cabdullaahi bin Suleymaan oo la taliye ka ah maxkamadda boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegay in uu sanadkan Ramadaanku noqon doono 30 maalmood, sida uu ku sheegay wareysi uu siiyey shabakadda warbaahinta ee Al-Sharuq Online. waxa uu ugu baaqay dadka doonaya in ay bilashada cusub ay eegaan dhammaadka bishan Ramadaan inay sii wadi karaan arrintaasi.
Sacuudiga waxa ay sheegeen in ay bishan Ramadaan ay la soomi doono 30 maalmood inkastoo lagu kala duwan yahay aragtidaasi. Xarunta caalamiga ah ee cilmi xidigiska ayaa sheegay inay jiraan dalal qorsheynaya in maalinta koowaad ee Ciidulfidriga laga ciidi doono maalmaha Arbacada, Khamiista iyo Jimcaha. Madaxa xarunta cilmi falaga Maxamed Shakawaad Cawad ayaa waxa uu xusay in ay bishan May 13 tahay maalinta koowaad ee ciidda marka loo eego cilmi xidigiska, isla markaana la filayo in inta badan dalalka Islaamka in bisha laga arko habeenka Talaadada ah ee ku beegan bishan May 11. Waxa uu soo hadal qaaday in ay jiraan dalal uu soonku ka bilowday bishii la soo dhaafay ee Abriil 14, kuwaas oo la filayo in ay maalinta Arbacada laga arko bisha Soonfur. Wadamada laga ciidi doono maalinta Khamiista ama Jimcaha waxaa ka mid ah Pakistan, Morocco, Oman, Bangladesh, India iyo sidoo kale Brunei. Sidoo kale inta badan dalalka Islaamka Afrikaanka ee aan Carabta ahayn waxa ay maalinta koowaad ee Ciidulfidriga u noqon doontaa Khamiista ama Jimcaha soo socota. Dalka Suudaan waxaa horey loo shaaciyay in ay maalinta Arbacada ay tahay maalinta koowaad ee Ciidulfidriga, halka Sacuudiguna uu sheegay in 30 maalmood la soomi doono bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhinaca kale, golaha wasiirada ee dalka Suudaan ayaa shaaciyay maalinta Ciidulfidriga ee wadankaasi. Qoraal ka soo baxay xogayaha golaha wasiirada ee dalkaasi ayaa lagu shaaciyay in fasaxa maalmaha Ciidulfidriga ay bilaaban doonto maalinta Arbacada ah, waxa ayna ku beegan tahay bishan May 12, iyadoo munaasabadaas ay socon doonto ilaa bisha May 16 oo ku beegan maalinta Axadda ah ee soo socota. Qoraalkan waxaa kaloo lagu xusay in ay shaqaalaha dowladda Suudaan ay dib ugu laaban doonaan shaqooyinkooda bisha May 17. Dhinaca kale, Sacuudigu waxaa markii ugu horeysay uu shaaciyay in ay taariikhda kalendarka Islaamka loo isticmaali doono tiknoolajiyadda cilmi xidigiska ama falaga, halka markii hore loo adeegsan jiray dhaqanka aragtida bisha. Sheekh Cabdullaahi bin Suleymaan oo la taliye ka ah maxkamadda boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegay in uu sanadkan Ramadaanku noqon doono 30 maalmood, sida uu ku sheegay wareysi uu siiyey shabakadda warbaahinta ee Al-Sharuuq Online. Waxa uu ugu baaqay dadka doonaya in ay bilashada cusub ay eegaan dhammaadka bishan Ramadaan inay sii wadi karaan arrintaasi. Sacuudiga waxa ay sheegeen in ay bishan Ramadaan ay la soomi doono 30 maalmood inkastoo lagu kala duwan yahay aragtidaasi. Xarunta caalamiga ah ee cilmi xidigiska ayaa sheegay inay jiraan dalal qorsheynaya in maalinta koowaad ee Ciidulfidriga laga ciidi doono maalmaha Arbacada, Khamiista iyo Jimcaha. Madaxa xarunta cilmi falaga Maxamed Shakawaad Cawad ayaa waxa uu xusay in ay bishan May 13 tahay maalinta koowaad ee ciidda marka loo eego cilmi xidigiska, isla markaana la filayo in inta badan dalalka Islaamka in bisha laga arko habeenka Talaadada ah ee ku beegan bishan May 11. Waxa uu soo hadal qaaday in ay jiraan dalal uu soonku ka bilowday bishii la soo dhaafay ee Abriil 14, kuwaas oo la filayo in ay maalinta Arbacada laga arko bisha Soonfur. Wadamada laga ciidi doono maalinta Khamiista ama Jimcaha waxaa ka mid ah Pakistan, Morocco, Oman, Bangladesh, India iyo sidoo kale Brunei. Sidoo kale inta badan dalalka Islaamka Afrikaanka ee aan Carabta ahayn waxa ay maalinta koowaad ee Ciidulfidriga u noqon doontaa Khamiista ama Jimcaha soo socota. Dalka Suudaan waxaa horey loo shaaciyay in ay maalinta Arbacada ay tahay maalinta koowaad ee Ciidulfidriga, halka Sacuudiguna uu sheegay in 30 maalmood la soomi doono bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhinaca kale, golaha wasiirada ee dalka Suudaan ayaa shaaciyay maalinta Ciidulfidriga ee wadankaasi. Qoraal ka soo baxay xogayaha golaha wasiirada ee dalkaasi ayaa lagu shaaciyay in fasaxa maalmaha